madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo soo gabagabowday booqasho rasmi ah oo ku joogay dalka Turkiga ayaa dalka dib ugu soo laabtay wafdiga madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hogaaminayay waxa ku jiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda iyo mas'uuliyiin kale waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu joogay wadanka Turkiga waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu furay shir looga hadlay horumarinta wax soo saarka beeraha qaar kamid ah wadamada Afrika madaxdooda ay ka qayb galeen kaasi oo ka furmay magaalada Antalya ee dalkaasi Turkiga madaxweyne Farmaajo ayaa dhigiisa wadanka Turkiga waxa uu kala hadlay dardargelinta sidii loo xoojin lahaa taageerada dawladda Turkiga ay siiso Soomaaliya mas'uuliyiintan inta ay ku sugnaayeen wadanka Turkiga waxa ay kala saxiixdeen labada dawladood heshiis ku dhisan iskaashi iyadoo arintana ay safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay wadanka Turkiga ay siinayso fursad ballaaran oo ah in la xoojiyo xiriirka u dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Turkiga maadaama dawladda Turkiga ay ka mid tahay wadamada sida tooska u taageera Soomaaliya